بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تبت سورة لغو مقعابي مكية المكي كسودكتي وآياتها هذون 5 آيات آيات يالو أو شنه وي سورة إنو ميشان هقلينا وحالي سورة تبت ياليله سورة أبي لهب نوال لها وحي كمتها قاعدة دي من باب تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه. إلهي حوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. تبت وي خسارتون إلهي يدا أبي لهب لبديس جمعود وتب وأنا خسارون إلهي ما أغنى كدافع ما عنه حقيس ماله مالكي صول إلهي وما كسب وحي أو كسبضي سيسلى وقل دون هود إلهي أبي لهب نار تاسو ذات لهب هلع صاحبه وامرأته هوينتي سنوا قل دونتا حمارة الحضب حالي تتيقري حمبارد بضن في جيدها اللقنتاذا حبل حرق حال أويهي ومن مسد ليف هود إلهي سورة وحوي إني مكتها إجماع يا لويه وعينا سورة نسود دكتي نبينا عليه الصلاة والسلام أيا قوم كيس ويهري وقريش ويهري مركز وحوداي إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا وحايدين كدقة يا عذاب شديد هرتي سايدين دقة يا أنت وصلنا دي إيمان أم كيس أو أبو لهب أيا وحوداي تبا لك خسارك ودعضي لهذا دعوتنا ما وحسن ويرتي وعلي سويره وعلي سويره واي هنا أسقى خربانو أسقى مركز سيسا وحبا وحيني هذه مركز waxaan ku sii darnane waxa soo degay وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من سوره الشعراء soo marijir ilaahi rasuulkiisa ku dhaay qaraabadaada ku dhow u digow dhah asoo nabi عليه الصلاه والسلام amarka ilaahi qaadanaya ayuu baxay ilaa marka buurta safo oo ka koro markaas uu qeydiyay ya sabaha wala idinku subhaystay markaas uu xilay man hada alladhi yahtifu wa maxay mid kan qaylinaya markaas ay hadana ogaadeen waa Muhammad ay dhaheen markaas ay nabigu u yimaadeen عليه الصلاه والسلام markaas uu hawla rasuulka عليه الصلاه والسلام يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب qayb ayuu markaas u kala sheegay quraysh asa markaas uu ku soo qaayay bani عبد المناف يا بني عبد المطلب waa soo aruureen marka kolkaas uu hawlay ka warama hadaan idin sheego niman fardoolay ah oo buurtan dusheeda ka soo baxaya oo duulaan iyo weerar idinku ah soo rumaymaysiin markaasii waxa ma jarabna alayka baanku uma naqaan rasuulkana عليه الصلاه والسلام jaanku محمد الامين ay dhihi jireen markaasuna waxa uu dhahay inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid adab daran ayaa idinka digaya sanada ku sii socotiin abu lahab markaas waxa uu dhahay taban laka uu dhahay khasaara ku dhacday ma jama'atana ila li hada waxano ma soo aruurin miya ila intaas ina sheegta maahe markaasuu meeshii ka istaagay suuradana markaa soo degtay suurada markay soo degtay naagtiisi ayaa maqashay oo shaydaamaheed idane oo la dhigi jiray Jamiil waxa zawjkeeda ku soo degay iyo quraanka soo degay markaasay nabiga u timid عليه الصلاه والسلام asoo nabigu masjidka fadhiya Kacbada agteeda Abu Bakarna oo la jiro isla markaas gacanta waxay ku wadatay dhagaxay ku wadatay dhagaxaas ay rabtay inay nabiga ku dhufato markay nabiga soo istaagtay korkiisa ayaa indhihi ilaahay gab ka siiyo nabiga uma jeedo nabiga laga qariyo عليه الصلاه والسلام nabiga ma arkayso waxay arkaysaa kaliya Abu Bakar ay arkaysaa markaas ay waxay tiri Abu Bakarow saaxibkaagi waxa iga soo gaaray inuu icaayayo oo anaga dhan caayay reer Abu Lahab hadana hadii aan heli lahaayay tiri la darabtu bi hada al-fir fahu waa way dhagaxan ay afka uga dhufalahay wallahi inni la qaatil ana hada lan dhahayay tiri mudamman abayna wa amruhu abay mudamman asayna wa amruhu abayna wa diinahu qalayna ay tiri waa mid markaas dhaxdayna waxba aanan ku ahaynin oo dhimmi ku ah oo nu caasinay amarkiisa waa diidnay diintiisana waa u caroonay tiri markaas iska naqatay Abu Bakar markaa wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisa soo arki mahay naagta miina ku arkeenin markaas uu nabiga عليه الصلاه والسلام ima arago dhahay ilaahay yaa indhaha ka qaaday oo indhaheeda iga sarfiyay qurayshna rasuulka ay ku magacaabaysa mudammam markaas ay caay jireen ay duudimatin way markaas waahdin waa qof masalan ba waxa way ayaga kula nool gaal dhimi ho kalantood amal kula nool meeshaba wadani aan ka ahaynoo amal ay ka dhigi jireen saas way markaas waa taw dhahay maarataya saaxibul hamziyah wa'adat hamalat al-hadab al-fihra wajaat kaanha al-warqa wa taw dhahay marka waxa way sidaas ay ahaaday waxa la sheego kala soo nuzuulka sida uu raay Abdurrahman ibn Zayd Aba Lahab ayaa nabiga u yimid عليه الصلاه والسلام markaas uu dhahay maxaad isiinaysaa uu dhahay hadii aan ku rumeeyo Muhammad
markaasuna waxa uu dhahay waxa muslimiinta la siiyaa lagu siiyaa wax gooni lagu siimaayo markaasuu dhahay waa wax dheeraada marihimiya markaasuu nabigu ma yow dhahay maxaa doonaysaa uu dhahay markaasuu waxa uu dhahay wax dheeraada marihidow dhahay markaasuu tabban li hada min diinow dhahay diin kana maartay u khasaaro badan dhahay in akun waha ulaa sawa diin hadaan anigu soo galo ninkaygan magac leh iyo kuwaas masaakiinta aan isku mid naqanayna kaasu diin ma aanu dhahay ee waa in aniga markaas meel sare aan gaaro dadkaana aan la mid noqonin arintaas ilaahay wuxuu yiri markaas subhanahu wa ta'ala tabbanti oo dhaaya ilaahay waxa uu dhahay tabbad way khasaarto dhahay ilaahay yada abi lahab labadiisa gamcood hadda gacmaha laga cabirayo waa majaas ahaan weey ee maxaa yeela afcaasha ayaa sida badan gacmaha ka timaada ee qowl iyo ficilki la sameeyo oo qowlka afka laga yiraahdo iyo afcaashi gacmaha meelan ahayn lagu sameeyo sida farjigo kale waa la isu qabanayaa wa tabba waana khasaaro dhahay ilaahay waxay la mid tahay ahlakahu allah waqad halakadi ilaahay halak wa halak samee nabiga kaleey salaam markuu cadaabka ku cabsi geliyay ayuu wuxuu dhahay hadii ibnu akhi walaalkay wiilkiisu wuxuu sheegay xaq hadow yahay aniga waxaan isaga furaa maalkayga iyo awlaadayda markaas ilaahay wuxuu dhahay ma aqnaa ka daafici maayo anu xaqiisa maalkiisu wax maalkiisu ku taray lama arko iyo ma kasaba waxa uu kasbaday waxay u tarayaan male hadana alla wuxuu dhahay sayasla waa gali doona ninkaas abi lahab leeyahay naar ayuu gali doona oo ku gubanayo naartaasoo daata lahabin hula u saaxiiba asaga abi lahab waxa loogu baxshay nin iftiimayo dhalaalaaya ayuu ahay markaas naartii uu galayna sida ilaahay ka dhigay daata lahabin hula u saaxiiba oo ilaahay daata talahubin wa tawaqud way kuniyadiisa markaas ayaa maalkiisa laga dhigay maxaa yeelay wajigiisa iftiin jiray wajigaasa ilaahay ka gubaya Allah subhanahu wa ta'ala wajiga iftiimaya ayaa laga gubaya wamra'atu ayuu ilaahay naagtiisuna waa geli doontaa naarta xamaala tala jamila dhihi jiray ayadana xaalay taati qori xambaarid badan abi sufyaan walaashiisay ahaaday marka waxay ahaaday naag markaasi awraahay ahaaday waxayna ku dhimatay ayadoo xarig sida nabiga kaleey salaam qoriyo iyo maaratay geeda shawkaad ah waxyaabo markaasi waxa weey nabiga dhiba ayay ina doonto ayay jidka nabiga ugu firdhi jirtay si nabiga kaleey salaam waxay u yeelaan geedaha qodxalahay soo qaada jirtay حمالت امرأة حمالت طول حدا بدي آخرين امرأة لقى سفينة رفعية نصب ولا آخرية حالة تأتي قرية حمبارد بدن شوك سعدان كجيت كان ليراد عج اللباح توجار كجيداس أي سوق هذه جت مركزي طريق النبي كوريدي جرتي أيضا مركزي نبي ولقتها مالته هكو استاجو دباتها هكو جرت أيضا لهيس حسد كاس أيضا النبي وقبل جرى عليه الصلاة والسلام الدوانة وأرين مرة والبتها جويو حسدده هي ضدك النبي عليه الصلاة والسلام كسوه رجيده ولقوا ذي أدون كسي جوجايا هدي اللي يرادين علوم بيت العز والشرف أيضا نقول في عن كسوه جيده وحول عليه سي مركز قريها ويا وحن أقاضيسا وحال يري عداوذي ذا حد كذب هذه مركز أرين تاس بين عد الدرس تمر ربطين النفط هذا لبا شرته أي ربطين في جيدها أريد إله اللقنت هذا حال وياي حبل حرق إلهي أو من مسد ليف حرق هذا ساسا قيام الوصاب بحنايا أما وحال يري مركز أو وحي هذا ليري مركز عذابك أو كدعاي أيا مركز حرق ياسو قارت أوجر حرق يا إلهي كسرقي سداس أيا مركز وحوي أي كل متي معايا لا حرق ياسي كسو قاضي جرتي وحيابها مركزي شوكاتك قارت أي سوق شجرتي أيضا مالين وحال يري حرين مركز حرمة وده إذا حرمة وده أي فريستان نجح يكون فريستي سحوجا يجوا بجسو نجح أنا وحكيه سير ميل oo maartay god ah ayaa ka hooseysay oo laag ah marka sidaas markay ahaaday oo meesha saas maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa halaaga markaas waxa loo soo diray markaas malaga u yimid markaas uu gadaal ayuu jaf ka siiyay markaas xarigiina qoorta ku sirqatay meeshina waa ku dhacday saas ay ku dhimatay falxumadaas cid kasta oo nabiga wax yeesha oo cadaawadiisana tafalxumadaas ilaahay ku dilaya oo adduunyo iyo aakhiraba saas ay ku dhimanaysaa tan waxa weeye markaas saas waay hadii la ilaa aakhiro ayaa asaas lagu soo baxaan ibn Abbas wuxuu dhahay silsilad oo bir ah oo 70 diraaca dhudhuna ayaa dabada laga gelinaya marka amba afka laga geliyo dabada looga bixinaya intaasay markaasay cadaabkaasay ku jiraysaa fi jiidha luqunteeda xaal uu yahay ilaahay hablun xarig uu yahay oo min masadin liifahu ilaahay marka casharkeen intaas uu ka egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh